بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku amaayelo cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah oo fiye inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, anagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayno badbaadiyo. maanta waxaan hambalyeynayaa guusha taariikhiga ah ee ka dhacday magaalada Laascaanood wax ka dhacay doorasho runtii aad iyo aad loogu tartamay, ugu dambeynna ay isugu soo hareen laba murashax oo u tartamaya xilka madaxweynenimo ee 5 sano oo soo socota. labadaas oo kala ah Cabdulqaadir Aw Cali Firdhiye iyo Cabdirasaaq Khaliif. labadaas nin oo ninna helay 62 cod, ninna uu helay 18 cod, laba codna ay xumaatay. halkaa waxa ka dhacay runtii tartan adag. mucaaradkii ayaa burburay wareegii ugu dambeeyey, kuna wada biiray dhanka iyo Firdhiye. halkaas oo Cabdirasaaq Khaliif uu ku waayay coalition taageera oo codkiisa badiya. laakiin tartanku markii hore si u dhacay ay u ekayd inay tahay almost kala bar oo qir iyo qir ay noqon kartay haddii mucaaradku dhan isu wada raaco. arrintaas 41 cod ayay heleen mucaaradku. haddii ay isku dhinac aadi lahaayeenna waxay noqon lahaayeen ama aqlabiyad ama kala bar. laakiin siyaasadda dhaqankeeda ayaa ah markii doorasho ka dhacdo waxaa ka samaysma gaashaanbuuraysi, israacraac, isu guurguur. halkaa waxaa ka soo baxay oo guul ka qaaday markii la tartamo waa la kala sad qaadaye Firdhiye oo noqday madaxweynaha koowaad ee maamul goboleedka buuxa ee waqooyi bari Soomaaliya. maamul goboleedkaasi wuxuu ku suntan yahay taariikh caan ah oo 100 sano iyo ka badan jirta. taariikhdii darwiish sayid maxamed cabdillah xasan Allah u naxariista isaga iyo daraawiishtiisiiba waxay ku suntan tahay geyigaas. taariikhda qiimaha badan ee Soomaalinimada iyo gobonimo doonka laga soo abaabulay waxaa xudun u ahaa daraawiish iyo deegaankaas. maantana waxa ay ku suntan yihiin inay gebi ahaanba ku dhimatay 2 sano ka hor August 2023 ay ku dhimatay qadiyadii gooni goosadka ama kala goynta Soomaaliya inay ku dhimatay. waa taariikh cusub oo aad u qiimo badan oo aan goobjoog ka nahay. waxaa hambaliyeeyey dowladda federaalka Soomaaliya, villa Soomaaliya ayaa hambaliyeysay oo u hambaliyeysay maamul goboleedka cusub ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. waa maamulka ugu curdinsan ama ugu da'da yar. wuxuu jiraa maalmo. maantuu dhashay isagoo maamul goboleed buuxa ah. waan hambaliyeynaynaa shaqada ay qabatay villa Soomaaliya ee arrintaa ku saabsan. waxaan kaloo horey u hambaliyeynay 3 xubnood ee guddoonka baarlamaanka noqday oo runtii iyaga laftigooda guulo taariikhiya soo hoyey. waxaan hambaliyeynaynaa in alla intii kasoo qayb qaadatay halgankii madax banaanida iyo ayakatashiga loogu raadinayay deegaanka SSC. intii ka qayb gashay gaar ahaan ragga hadda tartamay oo uu ka mid ahaa Cabdirasaaq Khaliif iyo rag kaloo badan oo goobta fadhiyey oo ama xildhibaana ah ama guurti ah ama isima ah ama siyaasiyiin ah oo ama tartamayey ama daawanayay oo qayb ka ahaa guusha taariikhiga. kulligood waxaan u hambaliyeynaynaa halgankii ay kasoo galeen madax banaanida iyo soo afjaridda kala goynta Soomaaliya. halganka ay u galeen midnimada
ama ilaalinta midnimada Soomaaliyeed ay u galeen ayaanu hambalyeynaynaa. waxaan hambalyeynaynaa jamaahiirtii dhalinyaradii naftooda iyo u huray noloshooda inay iska diidaan in loo arrimiyo, go'aansaday inay iyagu taladooda gacantooda ku qaataan oo iyagu ay aayahooda ka tashadaan. waxaan bogaadinaynaa dadkii u soo gurmaday cadaadiskii iyo cudwaankii gardarrada ahaa ee lagu hayay dadka reer Laascaanood oo la duldhigay awooddii ugu badnayd ee maamul 30 sano dhismayey uu lahaa, isla markaasna aan waxba loola harin, madaafiic meelna aan la bixinayn, hadday tahay masaajid iyo hadday tahay suuq iyo hadday tahay isbitaal, aan meelna la bixinayn, waxba aan ka duwanayn waxa hadda ka dhacaya Qasa oo si toos ah loo beegsanayo shacabka iyo deegaanada ay degan yihiin oo dhan. cid alla ciddii u soo gurmatay, intii ka hadashay, intii garab istaagtay, dhammaantood waan hambalyeynaynaa. maxaa yeelay wixii ay u halgameen ayaa mirahoodii saaka la goostay. waxaan u baaqayaa maamulada labada dhinac ka xiga maamulka cusub oo dhismay inay ixtiraamaan rabitaanka ummadda. dadku waa xor, ninna nin uma dowladeeyo. labada maamul waxaan bogaadinayaa, waxaan ku dhiirigelinayaa inay ilaaliyaan nabadgelyo iyo derisnimo in lagu wada noolaado, inay ilaaliyaan inaan xabad iyo xoog aan xal laga raadin, inay ilaaliyaan in aan wiil dambe ku dhiman gardarro iyo anaa kuu talinaya oo kuu arriminaya. waxaan kula talinayaa in Soomaaliya midnimadeedu ay tahay mid muqadas ah, inay ogaadaan dhalinyaradu inkastoo ay yar yihiin, inkastoo ay faramaran yihiin, inay ku halgamayaan wax alla waxay heli karaan iyo waxay haban karaan say u ilaashadaan midnimadooda. saa darteed aan la hunguriyeyn dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwii daraawiishta, waa kuwii ka dambeeyey SYL, waa kuwii xoreeyey Soomaaliya, waa kuwii haddeer aad arkayseen markay kacaamaan inaan cidina celin karin. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan iyagana ugu baaqayaa in qabyaaladda iyo waxyaabaha la dhex dhigay ee social mediaha lagaga ugaarsado oo laysugu dhiibo cayda iyo dagaalka iyo waxaan macnaha lahayn laysugu dhiibo, inay ka waantoobaan, ka koraan. qof kastoo dhalinyaro ah waxaan kula talinayaa inuu wax barto, iskool aado. qofku markuu wax barto, haddii uu markii hore macno u dhashay iyo caqli iyo xilkasnimo, waxay u kordhisaa waxbarashadu intaba. waxay dhistaa shakhsiyaddiisa, kadibna uu shaqo tago oo noloshiisa meel saaro. labadaa markuu ninka dhalinyarada isku aadiyo ama gabadha dhalinyarada, labadaa markaad isku aadisid, waxaad awoodi kartaa inaad istiqlaal maskixiyan u heshid, maskaxdaadu inay xornimo hesho, inaad u fakertid si rational ah, waxaani waa sax iyo waa khalad inaad u fakertid, laakiin aadan u fakerin aanna lagaa marsan reer hebel baynu nahay, saan waan nahay, reer hebel waa u dhalanaye, maxaa iska galay. qof walbaa wixii uu kasbado buu reer hebelnimada habeenkii ula soo hoyanaya. subaxdii marka guriga laga wada baxo oo la shaqo tago, qofba wax buu soo kasbanaya, waxaasuu soo hoyinaya. marka inaan waxyaabaha jiib shaadka ah aan laydinka dhammaysan oo dalkiina aan idinka laydinku burburin. dhalinyaroy, inaad qabiilka ka baxdaan oo gees ilaah gees gacmaha isqabsataan. dalku wuxuu ku dhismaa, waxaan ku noqdaa waa dhalinyaro. waad arkaysaan tusaale waxaa idinku filan 2 sano ka hor halgankii ka dhacay Laascaanood, waxaa abaabulay, iska lahaa, hogaaminayey, dhiig iyo dhacaanba u shubay dhalinyaro. marka dhalinyaroy, jamaahiir idinkana intaasaan insha allahu tacaala idiin dardaarmayaa. gebi ahaan ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahankeeda iyo waxgalkeeda waxaan kula dardaarmayaa dhib badan baa jira, duulaamaa jira, weerar baa jira, weerar celis baa jira, cadow dibadda ah oo badan baa jira, inaan jaanis la siin. waxaan ku gabagabeynayaa sheekadii ahayd Ted Cruz
iyo haybkii uu kiciyey dhowrkii cisho oo isku xigxigay doraad shalay bay soo afjarantay kadib markii Fox News afhayeen State Departmentiga Maraykanka u hadla ama wasaaradda arrimaha dibadda u hadla uu u sheegay in aysan jirin haba yaraatee waxa isbeddel ah oo ku dhacay siyaasadda Maraykanku ka leeyahay Soomaaliya. siyaasadda Maraykanku ka leeyahay Soomaaliya ama ay Ingiriisku ka leeyihiin oo ay marar badan icraabeen waa siyaasad one Soomaaliya. qabiil gaara oo meel gaara dega ma noqon karo dowlad. waxaan kaloo rabaa inaan dib u xasuusiyo inta lagu khaldo Somaliland way ictiraaf bay helaysaa lagu khaldo. ictiraaf Taiwan baa heli lahayd oo Maraykanku ictiraafsan yahay oo Yurub oo dhan ictiraafsan tahay baa heli lahayd mana haysato. ictiraaf waxaa heshay iyaga kadib boqolaal macnaa intaasoo sano kadib iyaga waxaa heshay South Sudan. marka isu fiiriya Taiwanna sababtay u heli weyday oo caalamkii ugu xooga badnaa oo dhan Westernka oo dhan iyagoo China ku xumeynaya ay ictiraafeen ay waxba u heli laadahay iyo South Sudan oo cid wada taajirin ay heshay. waxaa lagu helaa ictiraafku saan horay ugu sheegay dad badan haddii uu Soomaaliya ka suurtoobayo waxyaabihii uu ku suurtoobi jiray oo dhan ma yaallaan laakiin hadduuba suurtoobayo oo go-id la ogolaanayo xamar buu yaallaa. muqdisho waa inay ogolaataa oo Soomaaliya ogolaataa in iyada la kala gooyo. maxaa yeelay qof inta yimaada Soomaaliya UN bay ka mid tahay wadamada fadhiya oo 190 iyo dhowrka bay ka mid tahay. waxaa lagu heshiiyey sovereignty iyo territorial integrity inaan la iska faragelin. intaasay ciraabeen State Departmentiga oo ku dhawaaqeen waxyaabahan haybka ah iyo dad lobbyista oo lacag iyo wax qaata iyo ama meelaha la orordo in la entertain gareeyo oo tan koonfurta lagu cadaadiyo inay shaqayso istaagto lagu cadaadiyo yaan laydinku khaldin oo laydinku dagin. wax ictiraaf la yiraahdo 30 sano idinkoo iswata baad weydeen 34 sano idinkoo marka haaf dhami go-ayo calan samaystay oo dowlad dhistay oo madaxweyne leeyahay oo dowladda federaalka ay aqoonsan tahay as maamul goboleed intiinii laysku oran jiray British Somaliland baa laydin ictiraafaya. dadka idin sheegaya waa dad idin khaldaya ama idin qasaya oo been idinku akhriyaye beentii hore bay kasii laba jibaaran tahay. maxaa yeelay hadda way kasii tabaryar tahay. intaasaan idinkana idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanba waxaan rajaynayaa midnimo iyo horumar iyo insha allahu tacaala inaynu ka baxno dhibka jira. intaasaan oranaya billahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.